maxaa ay tiri igu soo iga go'ay mar kale maxaa ay tiri codkaaga ma maqla qoladii maxay ku tiri haday aniga haa qoladii ninki ma imaaday ninki ilmaha aabahood maxaa dhacay ma imaaday ma iman walaalay ninkii wali ma iman isaguna waxay iga yiraahdeen iminka hadduu yimaado xitaa shaqa kuguma laha oo waxna kuguma samayn kara adiga caruurtaada haye marka waxay yiraahdeen hadduuba meeshan bas yimaado maxay ahayd wadankan aan jooga bas hadduu yimaado annakaaba qaadayna oo xabsi baan geynaynaa bay yiraahdeen maasha allah ummadda soomaaliyeed ee ku dhagaysan doonta maxaa odhanaysaa والله waxaan ka codsanayaa ilaahay khayraadiisa iyo ducadiina meel kasta alxamdulillah meel kasta ii furtay alxamdulillah waxaan idinka baahanahay inaad isaacidin bas wax kale idinka baani wax inaad igu saacidin oo wadankan uniga soo saartin waayo wadankan anigu ma garanayo afkay ku hadlayaan maxay hayday wax imikaba inankan un bay wadwada marka waxaan idinka rajaynayaa walaalay Soomaaliya meel kasta joogtid inaan maxay hayday anu gargaartin bas ducadaad igu gargaarteen oo ilaahay mar kasta uu ii furay waarun ducada ilaahay wax dhaafaya ma jirto walaalay laakiin inka waxaan u baahanahay inaad la caawiyo oo sida wadankan uga bixi lahaa yani dadkeeda iskala kulmi lahaa bas baa rabaa insha allah maxay hayday layga saaro dhibaatada insha allah waad guulaysatay waana guulaysanayna waana ka shaqaynaa taas inaan wadanka caruurta adigu kaa soo saaro ama hargeysa kaa dejiyo ama kaa dejiyo meesha allah meesha ugu fudud ma fahantay marka aad iyo aad baad u mahadsan tahay annagana I'm very happy waan faraxsanahay maanta hadiiba lagu dhahay qoladii Cameroon ay ku dhaheen gabadh cid ku taabanaysa malaha ninkan hadduu imaado xabsi waa guul waa ducada ummadda Soomaaliya meel adduunka ka wada joogtaan waad ku mahadsantihiin ducadiina khayr allah idin siiyo waana mahadsantahay walaashay assalaamu calaykum عليكم السلام